asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalayaal waa idin salaamayaa dhammaantiin meel kastood joogteen adduunka. waxaan idin leeyahay cimri dheer iyo cibaado sano suuban, caafimaad sare, arsaaqad waasaca ilaahay hana wada siiyo. meel kastood joognana alla hanagu xafido. waxaan idin leeyahay walaalayaal waad ku mahadsantihiin aad soo booqateen. walaalahaygu cusubna waxaan leeyahay walaalayaal like-tii subscribe-ka waa xaggiina, hala teginina, hana isku iloobinina walaalayaal, waad mahadsantihiin. walaalihii hore iila joogeen waxaan leeyahay walaalayaal waad ku mahadsantihiin soo booqashadiina. like-ta waa xaggiina, commentiga saa rabtiin ugu galgasha, sheerka kasii fiican, waad mahadsantihiin. mowduuca markaan caawa usoo galay ama maanta usoo galay ama subax usoo galay waxay tahay arrinka ku saabsan sayid cali oo ah wiilkii 2 jeer lagu xukumay dilka toogashada. sayid cali waxaa la sheegay galabkii maalintii ugu dambeysay oo maxkamaddu ay ku xukuntay waa tii lagu celiyey xabsiga waxaa layiri markii la geeyey wiilkii wuu xanuunsaday, aad iyo aad buu u xanuunsadaa layiri. kadib waxaa dhacday in wiilkii xanuunkii uu xanuunsaday in la geeyey isbitaalkaas oo kamid ah isbitaalaadka ku yaala magaalada muqdisho. intaas loogama harin, waxaa la yiri isbitaalka dhan waxaa ku wareegsan askar iyo ciidamo hubeysan oo wata hubabka maxaa la dhihi jiray, hubka noocyadiisa kala duwan. waxaa la sheegay oo kaleeto markii iyadoo markaas laisku wareejiyey, markii la weydiiyo maxaa dhacay, waxaa laga cabsi qabaa sayid cali reerkiisa ama eheladiisu inay weerar soo qaadaan oo ay xoog ku furtaan oo lagala baxo xabsiga, oo xabsiga lagala baxo oo xoog macnaha lagula baxo. marka waxay kaliftay in ciidamo meel walba la dhigo oo loo diido wax soo booqda sayid cali oo isbitaalka kusoo booqda. siday warka u dhigayaan waxay sheegayaan in waxaan ka ahayn hooyadiis aysan u geli karin una tegi karin. arinku markuu halkaa maray waxaa la sheegay in sayid cali ninka la yiraahdo marxuumadda aabaheed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna inay kulmeen oo micnaha isla fariisteen. madaxweynuhu mar walba waxaa isaga shaqadiisu tahay haddii qofkan dambiyadii iyo wixii ku caddaadaan, waa sharciyan inuu qofku saxiixo, in la saxiixo oo madaxweynuhu uu saxiixo qofkaas. waxaa la sheegayaa in madaxweynuhu saxiixay, uu yiri waxaan waa ku cadyihiin, anna waan saxiixay. waxaan la yaabay marka wuu saxiixay iyo wiilkii dhakhtar baa la geeyey oo dhakhtar buu ku jiraayo waa xanuunsan yahay, iyo aabihii marxuumadda dhalay oo meediyaha aan ka arkay inay tahay wax hore iyo inay tahay wax dambe aanan kala sixi karin, oo leh anigu wax aan xoolo qaadanayaa ma jirto, waxaan rabaa in gabadhaydu ay hesho cadaalad oo la ii qisaaso sida sharcigu sheegayo. haddaba marka walaalayaal arinku wuxuu soo kala bixi doonaa oo soo kala cadaan doonaa wiigaga soo socda ama maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda, anytime ayaa maaragtay ay soo kala cadaan doontaa arrinkan maanta socda. waayo wuu dheeraaday arrinkan, waa iska micnaha waana sharciyan in horta wax kasta si fiican loo baaro, arrinka markhaatiyaasha iyo wax walba si fiican looga baaraan dego. arrinkan hadda ilaa mudduu socdaa, ilaa muddadaas uu socdana iskama socoto. waxaa la fiirinayaa intaa waa dhiraan dhiris baa la dhahaa, familka gabadha, familka wiilka. sida roonna anagu waan rajayneynaa insha allah biidnillaah, sidii roon oo labada reerba khayrku ugu jiro oo maaragtay ilaahayna raalli ka yahay, ummaduna raalli ka tahay, labadaas reero ehelada ee ilaahay wax isugu daray oo haddana dhibaatada ka dhex dhacdayna
waxaan ilaahay ka baryayaa sida roon ee labada reerba u roon in ilaahay arrinkaas ugu dhammaystiro oo ugu dhammeeyo, oo markaasna wixii ka dambeeya ilaahay subxaana watacaala wax ka dambeeyo xun aysan dhicin insha allah biidni illaahi tacaala. ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa walaalayaal, iska ilaaliya inaad qof bilo-aadmiga ku xadgudubtiin sida aadba aadan u rabinin in laguga xadgudbo. ogaada waxyaabaha hadallada dadka meediyaha soo istaagaya laftigeeda waxay ka qeyb qaadan kartaa dhibaato badan. qofku markuu meediyaha yimaado waa inuu hadaladiisu xadadan yihiin, waa inaysan ahayn hadallo oo virus gudbinaya ama dhibaato geenaya ama dad kicinaya ama shacab kicinaya ama dhibaato iyo dhimasho xataa keeni kara. waa inaad ogaateen waxaasoo dhan dambi baa lagu yeelanaya. maanta wixii dhaca qofkii intuu meesha soo istaaga ku hadaaqay hadalla aan loo baahnayn dambi buu ku yeelanayaa asagana. sida aad la socotiin dad badan baa la xirxiray oo la qaqabtay, kuwo badan baa weli lagu daba joogaa. marka waxaan idin leeyahay walaalayaal, adduunyadu waa iska waa harka labadiisa galan, maalinba qof bay haysataa. soomaalina saynu u nahay xanuunka dhimirka dadka ku wada badan, waayo dad maalin walba qarax ka agdhacayo oo dad dhimanaya iyo kuwo dhaawacmaya intaba arkaya, oo haddii la rabo dadka qaarkood dadkoodiiba ku dhammaadeen meeshaas. maskaxiyan dadka uma fayooba. soomaali waxay u baahan tahay wallaahi caafimaad oo micnaha rasmiya iyo dhakhaatiir badan oo si fiican u baara dadkan oo xanuunadan iyo waxaan si fiican ugala tacaala si ay u degaan oo qalbigooduna u qaboobo. qur-aanna ha la akhristo soomaaliyay walaalayaal, qur-aanka ha la akhristo. qur-aanka maaha in adiga laguga akhriyo, qof walbo intaad taqaano isku akhri, oo maaragtay intaad weysasatid markaad tukatidba adigu ismarmari oo waa daawo. qur-aanku waa daawo, waa wallaahi oo bilaahi qur-aanku waa daawo. wax kastoo ku haya adaa isdaaweyn kartid maadaama aad qof tukado islaama tahay. inta aad ku tukato ka badan hadaadan garanaynin, intaad isku akhriso oo biyo ku tufato cab oo korkaaga marmari, bal arag saad noqoto. tasbiixda ha la badiyo. wadankeeni iyo dadkeeniba wax badan baa ka qaldan. ilaahay subxaana watacaala wadanka hanoo toosiyo, oo shacabka hanoo barakeeyo, oo nabadda kheyr hanooga dhigo, nabad hanoo keeno, oo ilaahay qaraxan iyo balaayadan hanaga joojiyo, oo ilaahay al-shaydaan meel daran allah ka tuuro. ilaahay subxaana watacaala meel daran ha ka tuuro kuwaas. wadanka ilaa maanta halkaas ayagaa dhigay. hadda waxyaabo badan baa jira oo aanan ogeyn oo maalin walba dhacaya. marka walaalayaal, dadkeena qurbaha jooga ee jecel inay wadanka qurbaha ka dumiyaan, ee abaabulaya kuwa gudaha jooga waxyaabahaas xunxun ku hadlaya, meediyaha soo istaagaya, waxay rabaan ku hadlaya, waxaa laga abaabulayaa waa banaanka. marka kuwa banaankana malagooda galay waa loosoo howlo badan baa laga wadaa dal iyo dibadba. marka halis ilaaliyo halaiska daayo isku dirka iyo ruufyaanimada iyo dadka la kala dilayo iyo dad wax ka dhexdhaceen oo laga dhex faa'iideysanayo. kheyr baan idiin rajeynaya insha allah biidni illaahi tacaala. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.